magacayga waa Hodan Axmed Saciid Naalaya waxaan ahay gabadh Soomaali waxaan ka imi wadanka Mareykanka maanta waxaan u joogaa dalka Kenya magaalada Nairobi inaan adduunka dhan tuso dhibaatada Soomaalida haysta maanta qaxootiga ku jira so aniga waxaan ahay gabadh iska degnaa wadankeygii aan iska shaqaysanayay markaasaan arkay Soomaalidii say u baaba'een ee qofna u hadleen markaasaan isri dadkay maybe inaan wax taro waayo so waxaan iri UN-ka waxay haystaan qof la yiraahdo Angelina Jolie ee u tagta meel walba ee ka hadasho refugee-ga waxaan u baahanahay qof celebrity ah oo Soomaali ah inuu u hadlo Soomaalidii so waxaan weydiiyay Saado Ali Warsame haddii organization-ka haysto la yiraahdo Somali Refugee Awareness igu caawiso inay Soomaalida dibaatada haysta inay adduunka dhan tusto because waa qof celebrity no ah anagoo Soomaali ah so Saado Ali way la joogtaa maanta waan nimi hadda waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Saado Ali Warsame iyada noo sheegaysa I would like to speak in Somali but Hodan will translate me. والدي السلامي بسم الله الرحمن الرحيم حنو مالين يا انتنا الصومالي دي وادي كرانسان قفك انا هاي اما وحا انو مد الصومالي دو قبطو الى ايو يران تايدي انيقو ان كان قاعدين ايام بلابي ومد الصومالي دو هالكن كيدا مو هذا الكيدا marka in la socotay oo dee joogtay iyo in taariikhdayda hayso wad leedihiin laga yaabay dadkaas Afrikaanka ama ummadaha kale xitaa inay wax ka hayaan taariikhdayda marka isu keen sharaxi maayo waxaan rabaa saddex qodob marka ugu horeysa horta Hodan aad bay u mahadsan tahay iyo groupka la shaqeeya way iga codsatay aniguna waxyaali aan u taagnaa ayay ahayd marka waxaan goostay oo aan ku talagalay inaan ku biiriyo codkayga Hodan arrimaha wanaagsan iyo fikradda fiican ee ay u wado ummadda Soomaaliyeed iyo halganka iyadoo inaan dhalin yar ah ay ugu jirto waliba aan ku soo korin dalka iyadoo yar baa dalka laga kaxeeyay dibadahaas ku soo kortay dhibaatana ma ayan arag laakiin se markii ay ummadda taariikhdeeda eegtay ama ay media-da aragtay ayay goosatay wixii ay qaban karto inay qabato taas waxa weeye waxa gabay mas'uuliyiinteennii magaca Soomaaliyeed wax ku qaadanayay ama ku socday ama adduunyada ku dhex jiray ayaa gabay marka dhalinyaradii ayaa garatay inay sameeyaan waa mahad Ilaahay idinkana waa leedinka sugayaa inaad sidaas oo kala adeegsaan saddex qodob baan rabaa maanta inaan ka hadlo qodobka ugu horeeya waxa weeye waxaan rabaa UN-ka inaan la hadlo United Nations-ka inaan la hadlo inaan idhaahdo 20 sanadood ayaa ummadayadu baaba'aysay oo ay rafaadaysay dawlad la'aan ahayd kii is yiraahdo wuxuu qababa karkarada la weydaarinayay aanu afduub ku jiray dadka yagii gaajo iyo haraad iyo colaad iyo tacliin la'aan caafimaad la'aan ayay u leeanayaan waad ogtiin maanta wadanka Soomaaliya waxa ka taagan laydinka sheekayn maayo marka 20 sano kadib UN-ku muxuu balaana muxuu qorshaha u hayaa ummadda Soomaaliyeed muxuu soo ugu talagalay ma inuu baabi'iyo dadka yaga inta joogtana maxay lacagta la mariyo dabeetana sida lagu ilaawo ma inay sida dhoosho uga qoslaan oo magacooda inta lagu soo dawarsado leeyahay Soomaali baa wax loo qabanaya haddana lagu raaxaysto Kenya iyo Ethiopia iyo inta la midka ah oo iyagana lagu hagartaameeyo ma in ay jiraahdaan Soomaaliga saay isu galiyo maxaanu sameeynaa anagu wixii taagtaya waanu sameeynaa marka waxaan rabnaa UN-ku waxa ay ka damceen ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inay maanta noo sheegan please inta iga gaarsiiya Hodan u sharax inta aan af Soomaaliga garanaynin mid waa taas talabaad waxa weeye anagu waxaan nahay American citizen
inta yar hadda idin la joogtaa waxaanu haysanaa dhalasho Maraykana ayaanu haysanaa US Department of State waxay joojiyeen caawimada Soomaalida ama qaaditaanka la qaadayo waxaan u maleynayaa 2006 or 96 2008 ayay si toos u joojiyeen waxaan moodayay 96 97 inay joojiyeen baan moodayay marka waxaan ka codsanaynaa US-ka inay mar labaad ay Chinese u ogolaadaan ummadda Soomaaliyeed loo furo in la caawiyo la soo qaado xiriyaha qaxootiga dadka ay ku baaba'san yahay dariiqyada ay dadka ay ku baaba'san yahay Soomaaliya xitaa kuwa aan soo gaari karin ayaa jira xiriyaha qaxootiga ee Dika iyo Dadaab iyo Xagar Dheer meelaha bahalu ku cunayaan ama gaajo ay ugu baqtiyaan marka codsi waxaan u gudbinaynaa inay mar labaad adduunyada kale way soo qaadaan maalin walba waa la keenaa dad baa la keenaa ama Afrikaan ha ahaado ama Asian ha ahaado ama maxay dhahay dhulkaas Middle East ka ka yimaado intaaba Maraykanku caawimaad weyn bay ummadda Soomaaliyeed u fidiyaan waan ku mahadinaynaa inay noogu daraan inay dadka yaga ay soo qaadaan wixii la soo qaadi karo intaasaan ka codsanaynaa dawladda Maraykanka qodobkaasna waa ka qodobka saddexaad waa qodob ku saabsan ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeeda iyo sida loo jahwareeriyay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee 20 sano dhalatay ama iyadoo 5 sano jirta ama 10 sano jirta dawladdii ay dhacday sida loo jahwareeriyay oo waqooyi iyo confirmation doonaan baa joogan khadka looga lumiyay hase yeeshee waxaad ogaataa fanaaniintii awoodda lahayd ee waabari ee aad ogayd inay ka mid yihiin bulshada Soomaaliyeed 20 sano baaba'san ee jabtay ee hoogtay halaagantay inay ka mid yihiin iyaga ka soo dhex bixin meer gaar ah ma yeelimaanin sida dhibaatada ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u saameysay iyagana u saameysay waabari kuwan hadda waa Muslima Qaasim waa Ooyaye Maxamed Ciise waa fanaan dhalay waxay qaxooti ku yihiin 20 sano aynu soo jabnay Kenya qaxooti ku yihiin wiil yar isagoo abu soo galay sad caruur ah hadda leeyahay tan ninkeedii waxa lagu dilay dagaalada lagu dilay iyagoo qaxaya la dilay iyadoo 9 bilood ayaa xabadi ku dhacday ilmihii uurka ku jiray xabadii baa dishay iyadana waa inta la qalaa laga soo saaray ilaa hadda ninkeedina waa la dilay ilaa hadda waxay korisay la silixsan tahay waa caruurteedii intii badnaydna fanaaniintii way dhinteen waanu se ku tala jiraa wixii duruuftu ogolaato nima meel ku asqoobay noqotay dhibaatadaasana wada saameysay waanu ku tala jiraa inaanu sameeyno oo aanu halgano wax dad garabna siisaan hadda tiin saxaafada aad baad u mahadsantahay waan ku salaamay in kastoo magacaaga ii sheegin maya maqrsani ilkaasi barasho wanaagsan maya maqrsani kumana aanu lahayn waxa jira anagu haddaanu nahay fanaaniinta Soomaaliyeed ama si hoobalada waa beriba anagu waxaanu nahay afka ummadda indhaha bulshada ayaanu nahay dareenka shacabka ayaanu nahay waxaanu had iyo jeer ka hadalaa wixii dhibaya shacabka ayaanu ka hadalaa waxaanu gudbinaa waxa ay qabaan shacabku ama bulshadu ayaanu gudbinaa sida daraadeed waxaanu gudbin jiray dareenka shacabka Soomaalidu waxay ku mahmahdaa wax ku siiya wax badan baad aragtaa laakiin se wax ku sheega wax yar baad aragtaa dawladayada waxbaanu u sheegayna inay wax fahmaan war shacabku wuu dhiban yahay dhibta laga qaado jarta hal la bedelo ama xukuumadda hal la bedelo ama systemku u shaqeynaya hal la bedelo hoga tusaaleyn baanu wadnay laakiin se nalamay garan xukuumaddiina nalamay garan wayna cadaadisay shacabigina nalamu garan lugtu ku walaaqay marka anagu dambi kuma lihin Ahmed aad baad u salaaman tahay waxa tahay saxufiyiinta wadaniinta baad tahay dushan kala socda in kastoo aragaagu hadda ay ahaa waan kugu hambalyeynaya waxaan ugu soconaa waxa idin sharaxday baan u maleynaya hodan Somali Refugees Awareness ayaa jira hay'adaas oo la aasaasay oo anigana iga codsatay inaan codkayga
iyo magacayga baawarkayga inaan ku biiriyo marka hay'adaas ayaan la socdaa waxaan doonaynaa ummadda meesha ku dhibaataysan iyo kuwa kale oo soo socda iyo wixii loo qaban karo inaanu kala hadalno adduunyada inaanu soo masawiro inaanu la soo sheekaysano inaanu kula noqono wadankaanu dhalashadiisa haysano inaan waa kan dadka yagii jabaye war noo fura qaxootiga noo soo qaada inaanu idhaahnaan barina ayaanu soconnaa waxaan idinkuna ilaahay barinaa inuu nagu guuleeyo codsigaas mid kale waxaad ilaahay inooga baridaan inuu wadankeena nabad inooga dhigo dibadu ma baahanayno hadii dalkeenu nabad inoo noqdo dibadii waa nafla caadi waa naf meelay weyday meelay aado weyday ayaa dibad doonta dalkaaga ayaad haybad ku leedahay aad sharaf ku leedahay sharaf iyo wanaagtoona kuma haysano dibadda laakiin naftaanu ku maradhaaminaa aad bad mahadsantahay sahla dadkayga wada jiro dantooda wada socdee miyay guul waayayaan maya maya waa maya waqooyiyaanow dhasho walaalahay koonfur jecele miya lay walayaa maya maya waa maya anaa wacad qaadayo calanka weligay sidee miyaan cidla wadhi karaa maya maya waa maya haqa weligi caado ma warayo badilkuye miya Soomaali weyn danayste wanjali kara maya maya waa wadankaygu waa waqooyi koonfur weeye wadankaygu waa galbeed bari weeye wadankaygu waa Hargeysa xamar weeye wadankaygu waa Kismaayo Burca weeye wadankaygu waa Midura wadankaygu waa Amerika wadankaygu waa Mirqura.